muddo 7 sana oo uusan la soo hadlin halkii wiil ay dhashay ee qurbaha jiray xaas iyo caruur lahaa hooyo tacsi ayay ka dhigatay waxayna 2 gabar oo kale oo dhashay u sheegtay in agteedu uu ka dhintay sababta ku kaliftay qisada ayaan ku dhex sheegi doonaa waana mid xanuun badan hadda wiilku wuxuu doonayaa inuu hooyo la heshiiyo hooyo waxay leedahay muddo 7 sana ayaa adiga xaaskaaga hooyadii xaaladaada weydiinayay iyo noloshaada sidaa daraadeed maanta way iga soo go'day waan iga geeriyootay keeska qisadaas oo hadda taagan ayaan rabnaa inaad nala gashaan kadibna aad nala falanqaysaan oo gar cadaalad leh aan nala qaadaan soo dhawaada xaaji weli biilashim soo dirin ogow come on thank you Vobi haddii aad ku isticmaasho waafi lambar UK ah Vobi wuxuu ku sahlayaa inaad si degdeg ah ammaan ah oo sahlan aad lacag u dirto qoysaskaaga Afrika ma jiro culays mana jiro waqti lumis Vobi si toos ah kaarkaaga UK lacag u dirso salaamullaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale qiso iyo qalbi taabad qisada aan rabo inaan idinla wadaago waa qiso xitaa dadkii ogaa ay ilmeeyeen markaan ka wada sheekeysanaynay ka cumrayntii waalidiintu way socotaa $300 ayaa laga cumraynaya hooy ama aab midkood labadada waalidna $500 waalidkaaga oo aad maanta adduunyada wax ugu qabato caruurtaada ayaa bir wax ku qaban doono marka aad geeriyooto sidaa daraadeed ka cumray waalidiinta anagu soo xiray ninka la leeyahay muxsan culimaadudiin kuu soo duceynaya ayagoo xajar aswad ka taaban doono ayaa cumradaada gudi doono taas oo aan anaga kor joogtan doono nala soo xiriir waa qiso ku saabsan xiriirka waalidka iyo awlaadda waa qiso ku saabsan nolosha qurbaha iyo weliba sidoo kale cilaaqaadka dadka qurbaha jira waalidiintooda kala dhexeeyo magaca wiilkan waxaynu ku soo koobaynaa jaamac waxaana halkan igu timi hooyadii oo markii hore doonaysay in ay caawiso gabar halkan baafin u timid laakiin markii aan sheekaysanay ayay igu tiri eray ah qof qurbo aaday faa'iido male waxaan dhahoy maxaa kala jeedaa kadib ayay igaga sheekaysay qisada khilaafka ayadii wiilkeeda oo hadda dad ehela ay ku dhex jiraan laakiin say u bilaabatay hooyo waxay dhahday wiilkayga jaamac aabbihii markii uu dhintay kadib dhaxalkii aabbe oo dhan isagaa lagu dhoofiyey calashaan aabbe gurihii uu ka dhintay dhan isagaa lagu dhoofiyey waxaana baaqi igu ahaa cidlo iyo 2 gabdhood oo yaryar oo xilligaa uu igaga tegey maadaama caruurteedu u weynaa muddo badan ayuu Yurub wareegay kadibna sharci iyo waxyuu waayey ilaa markii dambe gabar ay isbarteen Mareykanka ay u waday oo ay sharci siisay hadda wuxuu degan yahay Mareykanka ayay tiri wiilkayga maalmihii hore waxaa naga dhexeeyay xiriir waxaa naga dhexeeyay cilaaqaad iswaheshi waxba yuusan isiinin laakiin 7 sano ugu dambeysay ayuu wiilkaygii hal mar isbedelay dadka waalidiinta waxay jecel yihiin caruurtooda inay lacag siiyaan inay soo xiriiriyaan inay la sheekaystaan hooyo aabe maxaa kugu dhacay intee ka baxday caruurtisay ahayd wiil hebel aan dhalay calashaan waa taqaanaa familiyada qurbaha jira iyo dadkooda muqdisho jooga ama gobolada Soomaaliya jooga way isku xiran yihiin hooyada iyo maaragtay wiilkeeda abtiga walaalka ilmaha waa la isku xiran yahay video call la isku waa dad family ah leeyahay sanadka mar la isku yimaado waa taqaanaan idinkaga sheekayma intiina qeyr kale wanaagsan ee waalidkooda jecel laakiin wiilkani waxa uu sameeyay gabadhii uu guursaday waxay u dhashay 3 caruur ah 3da caruurta ah 2 kamida autism ayaa uga dhacday halka hal wiil uu badbaaday sidaa daraadeed wuxuu sameey jiray isaga markasta meeshii hooyo uu ka soo wici lahaa isaga xaaskiisa ayaa waxay soo wacaysaa hooyadeed oo degan suuqa xoolaha hooyadeed soo wacaysaa lacag u soo diree way salaame xaaladde weydine isagii wuxuu lacag dir leeyahay xaaskiisa mugt markay soo wacdo hooyo intaasna adaa iskale $100 xaajigayga hooyadiis lambarkaasay wadatahay ugu dir hooyo waxay dhahday marmar maamadu ay soo wacaysaa marna shalow ay soo sii helay lacagta
waa samray lambarka wiilkayga wacay ma dhacaayo ku aqiinay lambar gabadhaa raadiyey waa waayey waa laysiiyey mar waxay dhad hooy asaa kusoo wacay shaqo isaga mashquulsan yahay mar waxay dhad hooy ninkaas markaas waa iska biisi waa quustay dhahdeen sanadba sanad bilba bil maalinba maalin hooye waxay la tashatay marka labadeeda gabdhood way wacday waxay ku tiri gabdhahayga soo dhawaada waxaan idiin sheegayaa in duruufta amba xaaladda hadda jirto ay aada u xumaatay waxay dhahday hooyo muddo laga joogo 7 sano walaalkiin ima soo waco lacagtaas ayaa xaaska isaga uu qabo hooyadeed iisoo dirtaa taasna wax lagu farxa ma ahan waa wax xanuun badan waa wax dhib badan waxaan ka sameeya ma aqaano wada hadal sheeko gabdhihii waxay isu dayeen inay wiilka raadiyaan maadaama wiilkan uusan hooyadiisa wacinba hooyana waxay rabtaa in wiilkeeda uu soo xiriiriyo caruurta ay weydiiso waa taqaanaa hooyo waa wiilkana waa halka wiil horena waxaa la isugu dhacay wiilka hooyo dhowr jeer wacdo waxay ku tiri war adiga wax ogow in lagaa rabo gabdhahan waxay dhaxal lahaayeen waxay wax lahaayeen adigaa lagugu dhoofiyey gabdhaha ka warqab gabdhihii iyo wiilku waa kala go-een hooyo taas iyadoo ka caraysnayd ayay haddana $100 biilkaasi qaada jirtay nolosha waa aragtay waa isbedelay maciishadu waa isbedelay hooyo haye 100 ma kugu filan yahay hooyo 100 ma kaa badan yahay hooyo say wax yihiin ma jirto waxay kaloo hooyo yasmo iyo quur u aragtay in mar walba soo wicitaankaba hooyo meeshii laga soo wici lahay uu ka soo wici lahay maxalada wiilkeedii waxaa soo wacayo gabadha uu qabo hooyadeed aa soo wacayso oo xataa haddii gabadhu soo wacdo hooyo wiilka shaqo jiraa ee ilmihiisu saxtaa wax fiican ay haleed mugta hooyo ilmihii arki leed waxbay arki leed magaalada waxaa looga sheegaa wiilkaagi Nairobi uu yimid ilmaha lagu quraan saaray 2 cunuga hadleen uu haystaa waxyaabo noocaas oo kala waa adkaysan weysay 7 sano kadib waxay dhahday marka go-aanan gaaray maalin ay baxday waxay u tagtay gabadha uu qabo hooyadiis waxay ku tiri salaamu calaykum calaykum salaam maanta laga bilaabo lambar aan lacag igu soo diri karto ma lahan lacag wiilkayga aan ka rabana ma lahan aniga wiilkayga wuu dhintay tacsi aan ka dhigtay labadeeda gabdhoodna way ku raaceen go-aana la gaaray sida markay dhacday maamadii waxay isku dayday inay waxalxaliso waa xali weysay gabadhii wacday gabadhi waxay dhahday hooyo ilmihii aada iga xanuunsan hooyadan marka hooyo damiir lahayd waxay dhahday war ilmahaaga sidee ku caafimaadayaan hadduuba aabood caasi yahay oo halow hooyad u soo dhehin lacag damban ha igu soo dirin aniga asi ha u dirto adigana inkaar ha ka helin hooyada masaakiinta ooynayso wiilkiisa haddaa maandhay adiga aad ku jirto sheekadaas oo waxa isku diidan adi aad tahay ka dhex bax war hooy aniga ma ihi waana la hadlaa hooyana igu salaan waana soo wacaa la way soo wacday hooy wiilkaaga saa ku soo wacaayo asaa kula hadlaayo maamada lamarkay bedelad gabdhaha waa taqaanaan oo wiilka soo wacay waa ku ooyey waa qaldamaysaan waaye gabdhihii qaara calool jilca marka labada gabdhood mid kamid a hooyadii iyo gabdhaha kamida waa lasoo marsii waaye muddo hadda laga joogo adiga waxay dhahday 7 bilood waa hooyo weyn waaye oo iska maamo da-ah waaye 70 jir waaye waxay samaysaa maaragteen maqaayadaha shaaxa lagu cabo iyo baararka iyo imaataa caagaga maaragta oo bacbaclayaasha oo dadka biyaha ay ka cabaan watarka laga cabo biyaha maysaxada caaga ku jir laga cabo oo sijilka ah caagaasay aruurisaa dadka caanaha geela gada iyo dadka caagagaas subaga ku shuba iyo ay ka sii gadataa waxayna degan tahay gabar ay eedo u tahay guri ay leedahay oo aan kira ahayn waxaa la joogto gabdhaheeda ay dhashay mid kamida gabar ay dhashaa la joogto meeshaasaa hooy wixii la sii kara lagu siiyaa lagu masruufaa ayadan waxay qaraabo kartay qaraabataa wabilaahi towfiiq taas maxay dhalisa marka taas waxay dhalisay 3 shay in hooyo wiilkii ay dhashay wiilkii cidda xoolahoodii oo dhan ku baxay ee jaamac ahaa tacsi ay ka dhigato qisadan markii hooyo ay iga sheekaysay waxaan dhaha hooyo qisadaa dadka mala wadaagaa
waxay dhahdaa aniga ilaahay agtiisa ya ayaan wax walba dhigtay bini aadanna wax uguma baahni mana dawarsanaayo walaalow qisadii iska dhaaf waa u sheegay marka waxaan hoos iska muudo waxaa jiraan dhahay dhalinyaro fara badan oo maanta hooyooyinkoodii ka tegay ee dibadda aaday waxaan rabaa xanuunka qisadan in ay macnaha nala fiiriyaan oo ay ku waana qaataan waxaa kaloo aan rabaa dadka inay cadaalad sameeyaan oo ay xukumaan haddii lagu yidhaahdo hooyo gabdhaha ku aqrin doonee hooyo wiilka saamax meesha uu joogo ee inta la nool yahay iska cafi iyo haddii lagu yidhaahdoba kaas macnaha awlaad fiican maahan iska dhaafba commentiga aqrin doonaa soo marka idinka hooyo talaa ku leedihiin waxaa laga yaabaa ani keligaa dala hadlo hooyo inay yaraysato waxaa laga yaabaa dadka familka qaraabada ah inay u fahan dadu lacag soo siiyey laakiin idinkaa garta goy karo 7 sano wiilka hooyadiis aan la soo hadlin 7 sano wiilka hooyadii $100 usoo dirayay 100kaas usoo dhiibaya xaaskiisa ay usoo dhiibaysa hooyadeedna ayadoo la hadlin hooyada usoo diraysay bal maanta hooyo haddii ay tacsi ay ka dhigatay maanta haddii ay goysay maanta haddii ay ka calool goosatay hooyo maxaan dhihi karnaa waa ognahay waxaa jira gabdho fara badan oo saana oo aan waalidkood xiriirin waxaa jira rag fara badan oo waalidkood xiriirin waxaa jira dad isqabo oo labada waalidba aan xiriirin intaba way jiraan waxaa jira qof aan seexan karin inuu waalidkiis la hadla maahane wax walbana waa qadarta waa qoraal xitaa hooyo waa la qabta waxaa dhahdaa hooyo adiga waalidka ma xiriirin jirtay moogtahay soomaalidu waxay dhahdaa qofka markuusan waalidkiisa xiriirin caruurtiis ma xiriiriso waxay dhahdaa aniga waalidkay maba arkinba waxay soo korisay ayaday hooyada iyo aabahay waa dhinteen anigoo yar gaariyaa la gadoomay meel kismaayo u dhow kadibna aniga markii aan soo qaangaaray oo aan 7 sano soo gaaraba ayadii waa iska dhimatay reeraha la joogjoogi jiraan kusoo koray kadibna ninka aabahoodan guursaday muufo meel maqaayad laga duban ka shaqayn jiray markii dambena waxaan ka shaqayn jiray meel maaragtay oo isheeg oo maqaahi caadiya oo maaragtay raashinka lagu cuno weligay xamaaliya ahaa aabahood ayagoo yaroo iga dhintay kadibna hantidooda ilaaliyey dhaxalkooda ilaaliyey maalintay qaan gaareenna gurigaa u gaday wiilkaasaan dhoofiyey waxaana islahaa isaga uun kumood marka meel inkaar iga soo gasho malay tiri laakiin waa qadar laakiin waxaan u malaynaa isaga ayaa maanta inkaar qaadanayo oo kuwa uu dhalay uu korinayo beri waxba u tarimaayaan marka hooy waa iska ilmaysay markaa qalbigeeda arkana waa lala hadli karaa waa hooyo qalbi fiican laakiin xanuunkiyaa ku dambeeyo waxaa taas dheer soomaaliya ogaada dadku way sheekaystaan dariskaa ku imaanaya wiilkaagii jaamac intuu ku dambeeyey makula soo hadlaa caloosheedan hooy ogtahay waa xanuun aadan ka bogsan karin mar kasta jaamac maku soo xiriiriyaa haye maaratay meeqa ciyaalow dhalay war iga sii abti hebel waaye jaamac lambarkiisa sii jaamac hooyiis ba lama soo hadlo waa nin weyn 50 jiro 40 jira marka jaamac xaaladda ku hareereysan maanta 2 cunuga autismka haysaa laakiin waxaa ka daran bee-ada ilmaha uu korinayo iyo ilmihiyo duca waalid aan haysan hooyadiisoo calool xun baahan dawarsanayso laga yaabay inuu $40 $30 uu kafee ku cabo laakiin maanta hooyadii 5 saacadood 6 saacadood caaga gorbiso $0.5 5 ilaa 10 ka hesho marka qisada kiiskan waxaan rabaa dhaxda inaan soo dhigo qaybta faallada ayaan rabaa inaad wax walba ku go-aamisaan waxaanse idiin sheegayaa in ay jiraan dad fara badan oo nuucan oo kale caasi waalideyn ah oo nolosha ka dhacay nolosha adduunyada haddaa caasi tahay liibaan ma jirto aakhirana cadaabta waxaa kaa xigto inta iilka lagu dhigayo bis qabriga lagugula bilaabaa sida culamada inoo sheegeen waxba ha isku daalin ha soomin ha salaadin ha cibaadaysanin sadaqa ha baxsanin hooyada aabbaha u baahan awoodan inaa wax siiso ya ashahaadka kadib qofka wuxuu ku naartegi karo mogtaa qofka cibaado kasta uu sameeya hadduusan islaam ahayn oo ashahaadanin wax matarayso oo markoo ilaahay rumaynin iyo nabiga marka xigta hadduusan waalidkiisa uusan baari u ahayn cibaado kasta uu sameeya waxaa waaye waa bursan tahay sababtoo ah
waaba qof waalidkii soo koriyey dhalay ku horbaahan yihiin. aniga marka halka xabo oo aan ku lahaa waxay ahayd soo gudbinta iyo hooyo qisadan waa ka tuugay wayna ogolaatay wayna daawanee. waxaan rabaa marka saaxiibada qiso iyo qalbi taabad ku xiran qisadan qalbi taabadka dhulka nagala qaada hala sheergareeyo meelo fogaa la gaarsiiyo cid walbana waxaan ka codsanayaa inay ku fikir ahaato in qisadan ay u baahan tahay mar kasta in aad garab istaagtaan oo idinka dadka caasiga ah aa u wada sheergaraysaan. dad caasiga waalidiina taqanin ha loo sheergareeyo laakiin codsi waaye qaybta hoose commentiga yaa magacyada lagu soo qorin. qisadan qisada xigta intaanu gudbayno waxaad hoos noogu soo qortaa waa qisadii ku saamaysay amba ku taabatay si qaas ah nooca qisooyinka aad jeceshihiin iyo weliba magaalada aad joogto ee aad ka daawasanayso qisada. guud ahaana inta ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo. ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu naga dhigo kuwa isku naxariisto samada looga soo naxariisto. inta aan dib u kulmayno dardaarankeena ugu dambeeyey waa subscribe. Bye.